qaybta hore waxaan ku ekeenay suldaanadii iska soo dhexdhexlay oo kasoo talinayay ama xukumayay muqdisho, kuwaasoo 16 kor u dhaafeen sidaan soo xusay oo magacyadooda aan muxuu ahaay aan sheegi doono. muxuu ahaay magaalada muqdisho ama marka ama baraawe waxay yihiin magaalooyin runtii xadaarad la kuusatay aada u fog oo runtii aad iyo aad loo qiimeeyo. waxay ahaayeen magaalooyinkaas dekadaha leh waqtigaas golden era, magaalooyin aad iyo aad ganacsiga ugu shidhnaa. runtii waxyaabo waxaa jiray dadka reer banaadir ay soo dhoofsan jireen, waxay dhoofin jireen ayaa jiray. waxay soo dhoofsan jireen waxyaabahan oo xawaajka iyo khudradda. waxay ay muxuu ahaay ay dhoofin jireen funaanadaha gacanta lagu talo, koofidaha oo dhaxanta oo gacanta lagu talo. masar iyo waxay u dhoofin jireen iyo syria. waxaa la sheegaa saldanooyinka intaanan magacyadooda aan soo xusin oo ka talin jiray muqdisho, muxuu ahaay in caddeemo oo muxuu ahaay dadkii taariikhyahanada ahaa oo soo maray ay ku arkeen lacagaha waqtigaas oo muqdishan currency oo lagu arkay meeshaas. waxay ahayd lacag oo hal dhinacna ku sawiran saldanadii waqtigaas ka talinaysay, dhinaca kalena khulafaa uraashidiin magacyadoodii ama sawiradoodii oo ku qornaa. lacagahaas ayaa lagu arkay ayagoo coin ah, lacagaha qadaadiic ayagoo ah ayaa lagu arkay. sidoo kale muxuu ahaay lacagahaas sidooda waxay sheegaan taariikh sidaad ogtihiin qisadii oo asxaabulkaafi, dadkii 300 iyo dhowr sannadood ay jiifeen oo godka ku jireen oo hurdeen oo ilaahay markuu soo toosiyey lacagtii markay soo qaadeen oo magaalada yimideen inay 300 iyo dhowr sannadood ay jiifeen lacagta ay wateen ayaa lagu gartay. taariikh ahaan boqorka waqtigaas tali jiray ayaa ku sawirnaa. sidoo kale xadaaradda reer banaadir ama magaalooyinkan banaadir ayagana xadaaradda ay soo mareen taariikhyahanada markay ka hadlayeen waxay ka ogaadeen taariikhdoodii iyo saldanadoodii ay soo mareen. sawirada ku yaala lacagahaas waxa ay ka turjumayeen. sidoo kale waxaa lagu arkay muxuu ahaay dhulkaas lacaga oo kuwa chineeska, kuwa masriga, kuwa oo syrianka ah, kuwa vietnam, kuwa thailand, lacagoodii dhammaan ayaa lagu arkay magaalada muqdisho. taas waxay ku tusaysaa xadaaradda muqdisho ay ku jirtay xilligaas in ganacsi ka dhexeeyey waddamada aan soo xusay iyo magaalooyinka banaadir oo waqtigaas jiray. marka xaqiiqdii waxa weeyaan runtii taas waxay ku tusaysaa jiritaanka qadiimiga oo iyo xadaaradda fog oo dadka ku noolaayeen. xaqiiqdii saldanooyinka markaan aan soo qaado waxaan ka soo hadalnay suldaankii sheekh abubakar faqruddiin. suldaankaas waxaa ka horeeyey sidaan aan sheegay muxuu ahaay musafar ninka la dhihi jiray oo muxuu ahaay oo qarnigii 9aad oo xukunkiisa ilaa qarnigii 17aad uu jiri doono. laakiin suldaanada ayaa jiray oo iska dhexlayay ama ismagacaabayay iyaga dhexdoodii. markuu uu suldaan uu geeriyoodo uu magacaabi jiray wasiirkiisii ama wiilkiisii uu magacaabi jiray ayaa jiray. marka waxaan ka soo hadalnaa sidoo kale muxuu ahaay dadkii reer banaadir oo runtii oo ka yimid magaalada alxasa bariga sacuudiga iyo baxrayn oo aanu niri magaalo shidan ay ahayd magaalooyinkaas. laakiin markay arkeen dekadaha muqdisho oo aad u sii shidan, qoysaskaas oo 39 oo jifo ah ayaa meesha ka soo guuray. waxay ku soo degeen magaalada baraawe ayagoo oo ujeedadooda ay tahay in ganacsi iyo nolol ay ka bilaabaan magaalooyinka banaadir. kadibna oo muxuu ahaay ilaa iyo hadda maantadan raadkooda uu muuqdo. guryaha maanta aad arkaysaan oo aad u qurux badan oo 4 dabaq ah
ama saddexda dabaq ah oo raadkooda ilaa ay maanta muuqda. dadka dhisay oo waqtiga waa dadkaas oo waqtigaas oo qaxay. muxuu ahay 39kaas qoys markay yimideen ganacsiga hadda aan soo xusay ay runtii qeybka ay ka ahaayeen. waxaa kalaa jiray qarnigii sagaalaad musafar waxaa la yimid muxuu ahay qabaa'ilada kale oo aan sharaafta iyo camuudiga iyo qabaa'iladan kale ayaa la yimid. runtii ma raba hadda inaan qabaa'ilada aan tafaftiro sababtoo ah muxuu ahay online-ka ayaan geliyey. qoraalo badan ayaan ka sameeyey qabaa'ilada reer banaadir iyo magaalooyinkay degaan, magacyaday degaan, waqtigay ay degeen, waxyaabahaas oo dhan ayaan meelo badan ayaan geliyey. taas ayaa ugu filan. marka haddeertan waxaan rabaa inaan waqti badan aan qaadanin taariikhda reer banaadir, inaan isagoo kooban oo macaan inaan halkan insha allahu tacaala aan kusoo bandhigo saldanooyinka soo maray muqdisho. musafar xukunkiisii oo jiray qarnigii sagaalaad ilaa iyo 17aad. saldanadii ugu horeysay oo markii laga reebo muxuu ahay cabdilmalik ibnu marwan oo xukunkiisii oo muqdisho soo xukumay. dowladdii umawiyiinta muqdisho ayay soo xukumeen, waa tii soo xusay 646 ilaa iyo 705. haddana 900 ayaan dhihine 696 haddana kismaayo deged ayay ka sameeyeen, baraawo deged ayay ka sameeyeen, markana deged ayay ka sameeyeen oo saanadoodii militariga iyo ganacsigoodii ay ku sameyn jireen. waa tii hore aan ugu soo hadlay. sayid abubakar faqruddiin wuxuu xilligiisii sanad ahaan marka la fiiriyo qarnigii 12aad buu ahaa. wuxuuna geeriyooday allah u naxariista sheekhi 1290kii. xukunka waxaa kala wareegay wiilkiisii muxuu ahay suldaan cumar bin abubakar faqruddiin 1320 ilaa 1350 ayuu asna muxuu ahay meesha xukumayey. waa tii aan ka soo hadalnay cabdalla atanji ibnu batuuta uu meesha kala kulmay, asna waa ka soo hadlay, hadda dib uguma naqanayno. muxuu ahay asna waxaa ka dhaxlay wiilkiisii abubakar bin cumar ayaa ka dhaxlay. haddana waxaa sii dhaxlay abubakar. suldaanada waxaa la wareegay haddana abubakar bin moxamed. haddana saldanada waxaa la wareegay suldaan cabdiraxmaan bin musayd 1390 ilaa 1420. suldaan maxamed 1440. suldaan cabdirasuul bin cali 1470 ayuu ahaa. suldaan yuusuf bin abubakar wuxuu ahaa qarnigii 14aad dabayaaqadiisa ayuu ahaa dhammaadkiisii. suldaan maaligna wuxuu ahaa qarnigii 15aad. suldaan cumar qarnigii 16aad. suldaan zubayr bin cumar qarnigii 17aad ayuu ahaa. muxuu ahaay waxaa jiray qarnigii 17aad meesha waxaa jiray, waxaan rabaa inaan wax yar aan faahfaahiyo in leela fahmo. waxaa jiray muxuu markay jirtay magaalooyinka banaadir waxaa isku xukumayay saldanadoodu, waxaa haystay oo banaadir ahaan qolo walbo meeshooda ayay saldanadka ay ku ahaayeen. lacala hadda markaan soo qaado oo kale xukunka musafar muqdisho oo dhan ayay xukumayeen. markii afgooy meeshaas la yiraa boqortooyadii gobroon ayaa mar dambe ay xukumi doontaa. laakiin qarnigii 13aad 1350kii dowladda ajuuraan ayay aasaasantay. dowladdaas ajuuraanna waxay ka koobnaayeen dad ajuuraan ah, dad carab ah iyo dad turki ah oo iswada bahaystay. marka gaashaan buurays ay samaysteen. gaashaan buurays waxay la samaysteen koonfurta soomaaliya oo dhan. dowladdii islaamka markaa oo joogtay hadday ahayd cabaasiyiin, hadday ahayd cusmaaniyiin, ayay gaashaan buuraysa la samaysatay oo ayagana meesha qayb ka xukumayey. dowladdii gobroon ayay marka dambe sanadihii dambe oo qarnigii 17aad gaashaan buuraysa la samaysatay. dowladdii musafarna gaashaan buurays iyo xilfi ayay samaysteen. dowladda ajuuraan
saldhigeedu wuxuu ahaa mareeg, kadibna khalaafe ayay caasimad ka dhigatay, markii ugu dambeeyeyna marka ayay ka dhigatay markii la arkay Boortaqiiska inuu khatar ku yahay inuu qabto rabo magaalada Muqdisho. waa ka soo hadalnay qabashadii Baraawe iyo qabashadii Muqdisho ee Boortaqiiska, laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo muxuu ahay dadka ajuuraanka ahaa ama ciidamadii ajuuraanka oo isku dhafka ahaa waxay ahaayeen gaashaanbuuraysi maahayna ma ahayn awood oo xukumaysay muxuu ahaay meel walba. lacala maalan hobyo kale waxaa xukumayey saldanad oo habiye ah oona imaam u ahaa imaam maxamuud Hilowle Damaale. dhinaca oo abaanduule waxa u ahaa muxuu ahay habar gidir. muxuu ahay qaali waxa u ahaa shiiqaal, sida aad la socotaan taariikhda. marka duduble, marka sidaas ay ahaayeen. taasna waxay ku timid sanad ahaan marka la fiiriyo dhib badan ayaa jiray oo qarnigii ajuuraanka markay xukunka iyo awoodda iyo nidaamkan dowladnimada ay la yimideen waxay baad u imaan jireen oo ay baadi jireen dadkan qabaa'iladan kale gobolada dhexe. waxay ka qaadi jireen wax canshuur sanadla ah. marka canshuurtaas sanadla ah sidii xoogaa laiskaga baajiyo qoladan gobolada dhexe jooga ee habiyaha way shireen. marka imaam waxay ka dhigteen imaam maxamuud Hilowle sanadka markuu ahaa 1624. ayagana saldanad ayay hobyo ku haysteen ilaa iyo 1888 markii xoogaa dagaal ku soo qaaday Yuusuf Cali Keenidid ninkay dhihi jireen oo runtii oo meesha dagaal kaga guuleystay oo awood kaga maquuniyo oo meesha ka qabsaday magaalada Hobyo. kadibna muxuu ahaay dadka meesha deganaa oo lala dagaalay way ka soo carareen oo magaalooyinkan kale ay isaga soo carareen oo runtii qaar waxay soo gaareen baadiyaha Muqdisho, qaar waxay soo gaareen baadiyaha muxuu ahaay Marka, qaar waxay soo gaareen baadiyaha meelahan Sablaal iyo meelahaas ay soo gaareen. dadka ileen waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah. cirkaas iyo roobkaas ayay fiirin jireen, meeshii xoogaa oo neecaaw iyo roob leh ayay degi jireen. qasadkeyga ugu weyn maaha hadda dhinacaas inaan ku dheeraado. qasadkeyga waxa weeyaan taariikhdan banaadir inaan gebagabeeyo haddii alla yidhaah. sanadkii 1816 ilaa iyo 1822 waxaa dhacay shaqaaqo yar ayaa dhacday. muxuu ahaay ceel ku yaalay meeshan Boondheere, meesha hadda la yidhaah waxaan dhihi karaa sarta xaaji busuri ama masaajidka Cadaawe dhinaciisa ceel baa ku yaalay. dhul beereed aad u ballaaran oo ahaa. marka meeshaas ayaa dad laba qolo oo xamar iyo xamarday isku dagaalay. 16 qofood ayaa meesha ku dhinteen oo qaarkood ceelasha meedidkooda lagu riday. ceelkaas ilaa hadda raadkiisa ugu muuqdaa oo dhinaca Cadaawe ayaa ku yaalay oo ilaa hadda weli u muuqda raadkiisii. waxaa kalaa jiray dhacda kale masaajidka axnaafta, masaajidka la dhihi jiray waa masaajidka ugu qadiimsan ayaa la dhahaa. runtii waxaa la dhisaa la leeyahay 1000 iyo dhowr sannadood ka hor. dadkii muxuu ahaay oo dowladdii umawiyiinta oo wadanka soo gaaray diinta fidinayay ay meesha ka dhisan ayaa la yiri. meeshaas waxa weeyaan Savoy, hotel Savoy meeshay ahaan jirtay lafteedii ay meeshaas ayuu ahaa masaajidka. masaajidkaas waa la burburiyey, talyaaniga waqtigiisa ayaa la burburiyey oo waxaa laga dhigay hotelka Savoy laga dhigay. haddana hotel Savoy Jirde Xuseen ayuu noqdaa Savoy Center